dhammaan dadweynaha sharafta loo halkaa yimid qaybihiisa kala duwan waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan filahayaa munaasabadda tanu inay munaasabad ku saabsan tahay political organization cusub oo Soomaaliyeed oo la aasaasayo inuu yahay baan filahayaa. waxaan la soconnaa waayahan dambe inay aad iyo aad dhaqdhaqaaq fara badan oo political organization ama ururo siyaasadeed ay dalka ka jiraan. waxa weeye marka dalkeenu taariikhu soo maray inaynu ka faa'iideysanaa loo baahan yahay oo aynan dib ugu noqon wixii qaldanaa wixii saxnaana inaynu raacnaa loo baahan yahay. waxa weeye marka arrinta hadda taaganu ururada la sameeyey ururada Soomaaliya barnaamij qurux badan iyo ma garanaysaa ay sheegeen dastuur fiican wada leh weeye sida ay muuqanaysa marka ka soo horjeeda wax xun waligiis markii dhaqdhaqaaqa gobonnimadoonka lagu jiray waxa ka soo horjeeday bahaliya qabiil oo isticmaalku adeegsanay baa ka soo horjeeday la dagaalamay wax kasta oo wanaagsan oo dalkeena ka yimaada oo lagu dhaqaaqo waxa dumiya waa qabiil weey qabiilka intuu jirana qaranka Soomaaliya lugiisa si fiican isku istaagi maayo. intaanu soo jirnay laba goor baan ma garanayaa qabiilka laga adkaaday markii xorriyadda la doonayay oo halganka lagu jiray 43dii ilaa 56dii daaqilka la qaatay markii laga hadlay gobolada koonfur ama dalka oo dhan waa xamarka jira kulli way saameeyeen dalka shanta Soomaaliya oo dhan wax ka jiray ahay qabiilka waa laga adkaaday waxa ka adkaaday qarannimo iyo Soomaalnimo ka adkaatay qof Soomaali oo qabiil sheegan kara ma jirin oo macna leh axsaab qabaa'il oo la soo abaabulo Talyaaniga iyo soo abaabuleen shisheeyuhu oo laga hor keenay leegada waa jireen laakiin wax dadka feeta ku yeelan karay ama saldhig ku yeelan kara ma ahayn. qabiilku marka waxa weeye koow cudurka koowaad oo nala dagaalamaya weeye isla markaynu dawladnimada qaadanay qabiilkii baa soo noolaaday madaxdii halganka wada jirtay dhexdeeda madaxnimada isku qabsatay markaas qabiilnimo isku macaarday dabadeedna waxa dhalatay yaani qarankii inuu qabiil ma taqaanaa isha ka xoog bato oo kuraasti qabiil lagu raadsado ayaa dhalatay oo nin walba qabiil raadsado waxa dhashay boqolaal xisbi in la furto waxaad garanaysaa doorashada 69kii 88 xisbi ayaa ka qayb gashay inta ka badan liiska waageysan waayeen markii waxa laga reebay degmada xisbiga tartamaya 1500 qof oo inuu meesha geeyo intii weyday oo gaarsan weyn waa ka sii badnay qabiil bay ahayd qarannimadii iyo halgankii qabiil baa hakiyay muddo ka bacdi kacaanki baa dhashay kacaanku markuu dhashay 10 sano ugu ama 8 sano ugu horeysay inta dagaal sameysay ka horeysay qabiilka waa laga adkaaday waa la muquuniyay xoog baa lagu muquuniyay god baa lagu shubay qofkii qabiilka hadlana xabsi la geyn jiray laba eray baan ugu badnaa waxa ma taqaanaa lagu xukumo dalka dhiirigelin qabiil iyo xatooyo xoolo dadweyne labadaas dadka lagu xukumi jiray dagaalkii 77 bilowgiisii markii la bilaabay ayaa qabiilkii faalisi marlabaad soo bax ayuu soo bax qarankii buu dumiyay aakhira u diray marka inta qabiil jiro ogaada qarannimadu halis bay ku jirtaa sida daraaddeed axsaabta faraha badan waxaan ku soo jeedinayaa oo ka codsanayaa inay dib intay isugu laabtaan ay xisbi SWL oo kala ama alliance ama cooperation isku bahaystaan dalka in dib loo xoreeyo dawlad magaceed waa wadanaa barlamaan magaciis waa wadanaa madaxweyne magaciis waa wadanaa xukuumad magaceed waa wadanaa laakiin reaaltaan ma jirto awooddaas ma jirto gacanteena wax kuma jiraan shisheeye iyo jawaasiis ayaa ma taqaanaay ayaa dalkeena faraha kula jira jawaasiista ikhwaanada shisheeyaha u shaqeeyay in la dagaalamo laayay way khaaninta halisu dhashay ayaa la iska doonaya ka waxa lagu baabiin karaa axsaab muwaadiniina oo halgan ugu jirta oo laynaysa tuugada iyo khaaninta laynaysa loo baahan in la soo yimaado oo la soo rursado aniga maxamed cabdi yuusuf darajana idin kama rabo dunyana idin kama rabo hal wax kaliya idin ka raba Soomaaliya idin ka raba
soomaali baan rabaa bes wax kale idinkama rabo wallahi aanan darajo rabin wallahi aanan duunyo rabin wallahi aanan qabiil rabin wallahi aanan dangalan hayn wax soomaali ka gedsan ma doonayo laakiin ururada samaysmahaya waxaan ka codsanaynaa inay qarankii soomaaliyeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo xorriyaddii ummadda soomaaliyeed dib u nooleyntiisa inay dagaal u galaan baa la rabaa waxaa la rabaa qabiilka in lala dagaalamo waxaa la rabaa jawaasiista eyda in lala dagaalamo oo shisheeyaha kabaqaadka u ah ayaa la rabaa in lala dagaalamo oo la iska dhiciyo kuwaasaa ugu daran kuwa la adeegsanaya waa kuwaasoo kale wey in la iska dhiciyaa loo baahan yahay kuwaasaa qabiilku adeegsanaya kuwaasaa dan samaynaya oo dadka kala furfuraya sidaa daraaddeed midnimo soomaaliyeed iyo caqli soomaaliyeed ayaa la doonayaa axsaabtu dib ha isugu noqoto ha la tashado barnaamij kumuna oo dalkii dib in loo xoreeyo oo shisheeye in laga xoreeyo oo tuugada laga xoreeyo oo khawayaanada laga xoreeyo oo qabiilka laga xoreeyo ha la raadso oo gobondoon dib ha loo raadso halkaa waxaa ku dhigan SYL baa ku dhigan SYL mabdaeedii in la soo celiyo anu saasay soo jeedinayaa qolada hadda ururkaas samaysana waxaan ugu mataqaanaa u rajaynayaa inay urur Soomaaliyeed wadaniinta ka shaqeeya inay noqdaan oo madasha talada wadaag rasmi inay noqdaan axsaabta kale dadkana talawada la noqdo ummadana talawada ayaan u rajaynayaa aad iyo aad baad mahadsantiin dhageysiga السلام عليكم aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay talo waalid iyo dardaaran aad